videogan wuxuu ku socdaa dhammaan dadka taleefanada iyo social media iyo TV-yada iyo computerada addictive ku noqday oo aan nolol kala lahayn oo maanta dhan screen-ka fiirinaya ama social media ha isticmaaleen ama film ha daawadeen. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma ogtahay dhibka aad u geysanaysid xubinta ugu muhiimsan xubnaha Ilaahay ku siiyay taasoo ah indhaha. screen-madan iyo taleefkan aad maanta dhan social media aad ku jirtid ma dareemi kartaa qasaaraha aad indhahaaga ku keenaysid? bal aan ku weydiiyay indhahaaga meeqa ayaad maanta lacag meeqa maxaa ku bedelan kartaa indhahaaga maanta Ilaahay ku siiyay? ya bal wax yar isku qabo ee ka fakar su'aashaas. xeer indhaha isku qabatid ka fakar haddaan maanta indha beelo oo aan waxba arki waayo noloshaadu say noqon doontaa inaad isweydiisaan rabaa. indhaha wax yar isku qabo isweydii su'aashaas. maxaa yeelay waxa xaqiiqo ah haddaad saad social media iyo taleefanada iyo TV-yada u daawanaysin haddii aad na yarayn indhahaagu hoos bay u dhacayaan. ya indha xumi ayaa kugu imaan doonta. marka anu hadda waxaan u fiirsaday 5 sano ilaa 10 sano soo socota Soomaali kala bar way indha beelaysaa waliba dadka dhalinyarada way indha beelaysaa. sababtu maxay tahay? China markii 10 sano ka hor taleefanadii internet ku soo bilowday ayay sidaan oo kale addictive ku noqdeen. maanta ilmay kasto Chinese oo da'da 20 ilaa 30 jir oo kiyaalo xiran soo fiir meel kasto oo China tag oo kiyaalo wada xiran waxay arki karaan male contacts bay xiran. laakiin adiga Soomaaliga ah contacts ma gadan kartid. dhaqtar ma haysatid. Soomaaliya aad ku nooshahay laga yaabaa haye glasses fiican ma gadan kartid. markaad bari indha beeshid waxaad isweydiisaa kuwa soo gala live-ka oo har yamin aad bahalkan iyo comments-ki soo qabada aad ku haysid bal inay ku caawiyaan oo gacanta ku qabtaan in kale ii soo sheeg. ya runtaan la isku sheegaa fiican walaalayaal. indhaha Ilaahay ku siiyay waa nicmad Ilaahay ku siiyay ku xamdi xumaanta ha ku daawan screen-mada iska dami. midda u dambaysa rabana kula wadaago waxa weey waxa indhaha aad u waxyeeleeyaa waa bahalkan blue light-ka oo screen-ka ka imaanaya waay. ugu yaraan waxaad barataa sida blue light-ka looga xiro taleefankaaga ama computerkaaga ama TV-ga. ya intaas assignment-ii ku taa baro sida taleefankaaga night mode ama bahalkan la yiraahdo ama blue light-ka looga dami screen-ka aad fiirinaysid. blue light-ka inaad iska block garaysid waay. sidoo kale waxa laga rabaa si hurdadaada iyo noloshaada ay u hormarto inaad screen time ka yaraysid. war seexo war wax kale noloshaada ku qiimee war ka bax screen-ka. wa alaykum salaam.